kelimadayda inaan kaga hadlo munaasabadan sunno ilaahay tabaaraka wa tacaala ama sunan ilaahay iyo qawaaniin ilaahay leeyahay oo kowni ah oo tilmaamaya ummaduhu markay horumarayaan ama markay kufitaan ay kufeen ka hinqanayaan ama ka kacayaan asbaab buu ilaahay u sameeyey tabaaraka wa tacaala ilaahay isaga kownka maamula laakiin wax walba sabab buu u sameeyey sababtiisii haddii lala yimaado midhihiisa iyo natiijadiisa waa la goostaa haddii sababtii la gar marana lama gaadhayo natiijada lama gaadhayo allah tabaaraka wa tacaala qur-aanka kariimka wuxuu in badan inooga warramay qisaska ama qasaska qaybaha qur-aanka ku saabsan adduunka wixii soo jiray mujtamacaad badan oo inaga horreeyey oo adduunkan soo maray qaybo ka mid ah ayuu qur-aanku ka sheekeeyey sheekada faraha badan ee qur-aanku uu ka sheekeeyey macnaheedu ma aha faakihaysi maaha qisooyin laysaga faakihaysto ma aha sida alfa leyla waleyla oo kale ma aha laakiin waa qisooyin xambaarsan duruus xambaarsan waa ilaahay wuxuu inagu barayaa wax la yidhaahdo sunan allahi fi lkown qawaaniinta ilaahay uu kownkan ku maamulo tabaaraka wa tacaala qawaaniintiisa waxaa ka mid a uu qur-aanka inagu baray haddii ay ummaduhu qabsadaan sababaha horumarka keena xadaarada keena waa hormarayaan hadday ummaduhu sababihii horumarka keenayay ay la imaan waayaanna waa dib dhacayaan waana burburayaan allah tabaaraka wa tacaala arrintaa iyadaa wuxuu gundhig uga dhigay oo saldhig uga dhigay inuu isbeddel ka yimaado mujtamaca laftiisa wuxuu rabbigan yidhi tabaaraka wa tacaala ina allaha laa yugayiru ma biqowmin xataa yugayiruu ma bianfusihim ilaahay xaalad ummad ku sugan ma beddelo ilaa ay iyagu naftooda beddelaan halkaa waxaynu ka fahanay isbeddelka ummadaha ku dhacay naftooduu ka yimaadaa ayagaa sabab u ah ayaga midho ay sabab camal ay sameeyeen ayaa horumarka keena wakadalika dibdhaca keena axwaasha isbeddelaysaay waxay ku imaanaysaa cuskanaysaa ilaahay baa abuuraya haddana waxay salka ku haysaa addoommadaasi waxay sameeyeen sidoo kaleeta rabbigeen tabaaraka wa tacaala qisadii dagaalkii uxud oo saxaabo badan lagu laayay markii ay dhacday ayaa su'aali timid saxaabadu waxay yidhaahdeen annaa haadaa siday tani ku dhacday waa saxaabadii nebiga sal alla alay wasalam waa ardadii rasuulka sal alla alay wasalam haddana jab baa gaadhay 70 baa laga dilay dhib baa soo gaadhay say ku dhacday bay isweydiiyeen allah tabaaraka wa tacaala wuxuu ku yidhi qul huwa min cindi anfusikum waxaad ku tidhaahdaa naftiina agteeda ayay ka ahaatay waxa idinku dhacay ma aha ilaahay idinma dulminin ilaahay addoommadiisa ma dulmiyo laakiin waxaad idinku gasheen midho ka dhashay weeye dhibka idin gaadhay sidaas daraaddeed qaacidada asalkii waxa weeye isbeddelku wuxuu ka yimaadaa ummadaha allah tabaaraka wa tacaala wixii ayagu ay sababsadaan ayuu midho ku siiyaa ama horumar ama dibdhac qaacidada markaan taqriirino kadib ummadaha maxay ku horumaraan haddii la isweydiiyey si gaaban haddaan u tilmaanno waxaa asal u ah cilmi iyo barasho aqoon baa asal u ah ummad jaahil ah oon wax garanaynin oon wacyi lahayn ma horumarto sidaas daraaddeed baa qur-aanka kariimka ah aayadihii ugu horreeya ilaahay soo dejiyey waxay ahaayeen iqra' bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra' warabuka alakram aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam waa akhrin iyo qalin iyo barasho leanna ummaddii nebigu u yimi sal alla alay wasalam ummad dambaysay ahayd ummad jaahilay ahayd ummad qabaa'ilay ahayd ummadaan xadaaro lahayn bay ahayd
xadaaradii iyo horumarkii waxaa laga bilaabay akhri iyo barasho iyo aqoon baa laga bilaabay saas daraaddeed waxaan isku waaninaynaa ha lagu dadaalo aqoonta oo isugu jirta midda diinteenna ilaahay inoo soo dejiyey iyo aqoonta adduunyada ee naafica ah haddaynu doonayno inaynu ka baxno xaaladda aan ku jirno qodobka labaad ee ummadaha horumarkooda keena waxa weeye in aqoonta iyo cilmiga ummadda lagu tarbiyeeyo nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh markuu allah ka warramayay shaqada loo soo diray ee ummadda uu hayay wuxuu rabbi tabaaraka wa tacaala ku sheegay wayucallimuhum alkitaaba waalxikmata wayusakiihim kitaabka iyo sunnada ayuu dadka barayaa waana ku tarbiyeynayaa sidaas daraaddeed waxyigu markuu yimid nebigu dadka waxbaray waxbariddii keliyata ma ahayna camal baa loo rogay dhaqan baa loo rogay akhlaaq baa loo beddelay tatbiiq baa loo beddelay ummaddu haddayna marka tarbiyo iyo camal ahaan u qaadanin wixii wanaagsanaa iyo cilmigii ayadana aqoon keliyata meel ma gaadho qodobka saddexaadii waxa weeyaanoo ummaduhu ku horumaraan ilaahayna tabaaraka wa tacaala uu inoo sheegay waa amniga iyo istiqraarka ummaddu hadday nabadgelyo weydo oo istiqraar weydo oo xasillooni weydo ayadana horumar ma leh inay gadaal u gurato oy dib u noqoto mooyaane haba yaraatee horumar ma leh sidaas daraaddeed baa ahmiyada amnigu uu leeyahay iyo istiqraarku uu leeyahay qur-aanku markuu ka warramayay wuxuu u tilmaamay arsaaqda bini aadamku ku nool yahay risiqa cuntada cabbitaanka aan laga maarmin ammaankii buu hormariyey kadibna risiqii ammaan buu ugu duceeyey kadibna arsaaq meelo badan baa qur-aanka saa la isugu lamaaninaya wadaraba allahu maalan qaryatan kaanat aaminatan muطma'innatan ya'tiiha risquha ragadan min kulli makan fakafarat biancumi illah faadaaqaha allahu libaasa aljuuci waalkhawfi bima kaanuu yasnacuun ammaanka iyo xasilloonida iyo risiqa iyo noloshu waa iswadaan cabsida iyo gaajaduna waa isku lamaan yihiin sidaasuu qur-aanku u cabbiray sidaas daraaddeed ummad aan ammaan lahayn oon istiqraar lahayn oon xasillooni lahayn iyadana horumar suurtagal maaha waxay ina baraysaa marka sidii hadyigii nebigeennuba ahaa sal alla alay wasalam iyo saxaabadiisa ammaanku iyo istiqraarka ummaddu waa mas-uuliyad kulli dadkoo dhan saaran waaye ma aha mas-uuliyad dowladeed keliya ma aha mas-uuliyad wasaarad keliya ma aha mas-uuliyad koox gooniya ma aha waa mas-uuliyatuljamiic ummaddoo dhan baa mas-uul ka ah ammaankeeda iyo istiqraarkeeda iyo xasilloonideeda maxaa yeelay haddii la waayo diinina ma jirayso adduunyana ma jirayso qodobka kaleeto ee horumarka lagu gaadhay qur-aanku tilmaamay waxa weeyaan midnimada iyo wada jirka iyo isjacaylka iyo iskaashiga iyo waxwada qabsiga maxaa yeelay rabbigeen qur-aanka kariimka wuxuu inoogu tilmaamay ummad hadday iskhilaafto inay fashilantay walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum ha iskhilaafina oo haddaad iskhilaaftaan oo aad fashilmaysaan qasab waa natiija xatmiya waad fashilmaysaan xooggiinni iyo awooddiinnuna way baabi'i waxaad noqonaysaa maataa oon qiimo lahayn oo dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda iyo masaalixdooda la hunguriyeeyo maxaa yeelay qiimihii baad beeshay waxa keenayna waxa weeyaan waa qodobka isagaa waay walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum wada jirka iyo walaalnimada iyo isjacaylka iyo waxwada qabsiga haddii la waayo ummaddu awooddii la rabay inay horumarka ku bixiso iyadaa isku bixinaysa iyadaa isku mashquulaysa daaqaadkii oo dhan ba iyadu isgelinaysaa mid khilaafsan mid daba ordaya mid naqdinaya mid la dagaalamaya awooddii la rabay in bannaanka loo saaro wax lagu dhaliyo wax lagu soo saaro ayaa waxay gelaysaa ummadda dhexdeeda qabyaalad kooxaysi gurubaysi masaalix marba haddii khilaaf yimaado ummaddu kala jabto natiijadu waxa weeye waa fashal waay sida qur-aanka kariimku inoo sheegay dalalkii muslimiinta qiimaha badnaayee qaaliga ahaa ee la waayeyna waxa lagu waayey waa tan ina haysatoo kale waa dhulkii muslimiintu 800 sano ka talinayeen andalus
waxa lagu waayay waxa weeye waa qabiil qabiil iyo koox koox iyo dana khaas iyo maslaxa khaas iyo dadkii walaalaha ahaa in dhexdooda ay isku mashquulaan kadibna cadawgoodu ka faa'iideysto sidaas daraadeed ummad iskhilaafsan oo kala tagsan natiijadeedu waa fashal sida quraan kariimku inoo sheegay midnimadu waa laga marmarka waa arin muqaddasa waa in quraanku tilmaamay sunnada nabiguna tilmaantay sallallahu alayhi wasallam bini aadamka aqliga leh hatta gaalba ha ahaado bini aadamka aqliga leh hatta gaalba ha ahaado waa garanaya midnimadu waxay tahay hatta xayawaanaadka ilaahay abuuray tabaaraka wa tacaala in badan oo kamil ilaahay alla wuxuu geliyay fitra'a wada jirka iyo faa'iidadiisa iyo kala tagsanaanta iyo dhibaatada ay leedahay cayayaanaadka xataa yaryarka ah ya shirca duulaanka iyo muxuu ahaayey shinnida waxyaalaha yaryarka ah baa ilaahay wuxuu geliyay fitra'a in ay wada jiraan oo waxda qabsadaan oo cadawgooda iska wada celiyaan oo kala dambeyn yeeshaan bini aadankii aqliga lahaay waliba muslimka ahaa waxa halka dhigay isweydiin bay mudan tahay saas daradeed midnimadu waa muqaddas waa in la ilaaliyo qodobka kale ee mid horumarka lagu gaaray quraanka kariimku inoo sheegay waxa weeye waa al-adala al-ijtimaa'iyya umadu inay cadaalad hesho oo dulmiga iyo xadgudubka iyo gardarradu meesha ka baxdo umada in xuquuqdeeda ay hesho midka tabarta daran loo naxariisto ka xooga badan iyo ka tabarta daran uusan ku istaagin in la isu tanaasulo in umadani ay hesho cadaalad hesho waxa Allah tabaaraka wa tacaala siyaasadda sharciga ah shariicadu siyaasad bay leedahay siyaasadda sharciga ah sidoo leeyahay Sheekh Islaam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah laba aayadood buu Ilaahay ku ururiyay tabaaraka wa tacaala labada aayadood uu ku ururiyay suuratu an-nisaa bay ku jiraan waa laba aayadood oo isku xiga waxay tilmaameen madaxda xaq lagu leeyahay mas'uuliyadda saaran raciyadda iyo shacabka la xukumayo mas'uuliyadii xilka saaran haddii shacabkii iyo dawladdii khilaaf dhex maro sidii loo xallin lahaa intaasuu ilaahay ku ururiyay tabaaraka wa tacaala inna allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani inna allaha ya'murukum an tu'addu al amanati ila ahliha madaxdu xilka ay hayaan waxa laga dhigay amaana ay ummaddu leedahay ayagu ma laha laakiin ummadana iska leh inna allaha ya'murukum an tu'addu al amanaatka inaad gudataan ila ahliha dadki iska laha inaad u gudataan yaa iska leh shacabka iska leh shaqadan shacabka iska leh mas'uuliyadda shacabka iska leh inaad u gudataan wa an tahkumu bil 'adli markaad kursiga ku fadhidaana ummadda inaad cadaalad ku xukuntaan iyo dariiqa saxda ah oo aad dulmiga ka fogaataan inta waxa lagu la hadlay madaxdii raciyadiina ilaahay wuxuu kula hadlay aayadda ka dambaysa yaa ayuha alladina aamanu atiicu allaha wa atiicu ar-rasuula wa ulil amri minkum mu'miniintii waa raciyadii waay allah atiica rasuulkiisa atiica dadka xilka iyo talada idin hayana amarkooda atiico yeela tabcan waa wixii shariicada aan khilaafsanayn marka raciyadana waxa lagu leeyahay wixii aan shariicada ka hor iimaanaynin inay nidaamkooda iyo dawladda iyo cidda u talinaysa ku garab istaagaan amarka yeelaan talada qaataan kala dambeynta ku dadaalaan dawladdii iyo shacabkii hadday isku dhacaan maha xal ah fa in tanaasactum fi shay'in farudduhu ila allahi war rasuul dawladdii iyo shacabkiiyow haddaad isqabataan oo wax ku murantaan u celiya xagga alle iyo rasuulka xaggiisa yacni wax way qaanuunkii ilaahay soo dejiyey u celiya isagaa idin kala saaraya oo idin dhaxeeya oo garsoor ah sidaas daraaddeed haddii ay ummaddu ay noqoto fawdo aan nidaam ku soconin ama dulmigu ka yimaado madaxda ama shacabku dowrkiisa iyo kaalintiisa qaadan waayo ummaddaasi ma horumarto waa laga maarmaan marka cid walba positionkiisa saxda inuu qaato si looga baxo xaaladdan aan ku jirno ummadduna horumar u gaadho qodobka xigaayu wuxuu yahay oo isla qodobka raacsan mid inaan ogaano waayo qaacido kale oo quraanku taqriiriyay baa jirta oo inaynu fahanno u baahan qaacidadaasi waxay tahay madaxda iyo dawladda haddii ay kugu xumaato dawladda kugu xumaatay waxay daliil u tahay inaad adigu xun tahay masalada aad ugu fiirsada dawlad kugu qalloocatay waxay daliil u tahay inaad adigu qalloocan tahay meel kale ha ka raadin
الله قرآن كريم كوحيد وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون ظالم هذا تهي إلهي ظالم بكوكوس الذي الجزاء من جنس العمل ما حايل أذيقي ظالمة ما يستاهشد مركا إن مدوانا أكسن لقوك يانو ما يستاهشد هذا ربطو إني وحكو صحمان هوستك الصح ساس تردد مجتمعاتكم مركا هوستك الصحمان با إلهي كوركا أصحى دولة أصحى لكن مجتمع فاسدة أو بدنكين خربية هي أو وحقصية أو وحديلية أو ظلمينية أو إسخلافية وحبي يسوها بينيني هذا الدولة وانا أكسن مالك كانوا تأذيك كنت هاجني ككع يا دولة دي وانا أكسن أدا كنت هاجني ككع هاجاتي مركز إسهاجاتي سإلهي وهاجاتنا يا تبارك وتعالى سنة أنا وسنة قرآن كريم كينو الشيء وحكنا قدر مهمة أو مضوه كهر مران مر والبا إن لا إلاليه نظام كي كلا الضمبينت إن لا إلاليه فوضى وحبكم السروبان فوضى وحبكم السروبان سيداس درادد أيا وحى قرآنكو إن بري قرآنكو وحو إن بري نظام إيه كلا الضمبين بو إن بري نبي إنه مركو يمي صلوات ربي والسلام عليه إلى أنتو كلمني ومدى وحكوه قاميني النظام إيه كلا الضمبين إيه اسمقل النبي صلى الله عليه وسلم مالين بو صحابة دوانيي ومدي صلى الله كدب وحيكون هذا رسولك إلهي ساكا وادنا وانس وأنا حيل دير وآدمو دينا نجت جيسون رسولتيس النودر دارا النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله وحنيدين دردار ما إلهي عبسيس ودين تأساس كذيوه والنبي صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة إن اسم قشان كلا الضنبيسان إسياشان نظامك إلى لسان بان إذين دردار ما يابو النبي صلى الله عليه وسلم وفيرسو تقوذي أو الدين تأساس كذيئة أيها وحال لقول لمانيي ومدوني كلا الضمبين لهذا ورمامو الهدود دقمك اللسان يهي هبربرنين هجاج وحي كخلدن أصح والنصيحة حدوي كوحير النظام لهذا هاي النظام كهبربرني متكر هدود شر هبربرني عد بربرني سحكو قرب سيني محايل حتى هدات كعلى علي سيدة شريتان كذا وحور دامات شريد لأنته علماء وحي هذان 60 سنة بإمام جائر أو ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام لحدا صنع الدولة حنكو هايستو أيا وحي دانتا هل هبين الدولة الآن المسألة أو في الصدى محايل هل كهبين الدولة الآن أنت الشرع دعي كرتا لحدا كاسنة الدولة دو قالوا عنها ما دعي كرتا هل هبين هدون نظام كبربره خلاص في النظر دعيس هي ليجا هي حرمة هي آفة دعيس هاي لحدا صنوا الدولة دو قالوا عنها ما دعي كرتا سيداس درادة باوحة مبدؤية هي إن مرول بالنظام لا إله ليه حتى هدي قالوا كتشرو طريقه والنصيحة وتوسين هدو توسي واي إن الله صبره وقت الله سيو لا دداله لكن هدي أنتي شرتي بعكت الله مريو كذلك بالله نقول حالنا معها وأنا ميد النبي صلوات ربي وسلام عليه حديث فربضان وكيري وحأقدم بيان أقدم بيسينا يا أمدي وأخلاق أمدان أخلاق الله إنه مهر مرتو أخلاق ذا دالة ذا حشودك أسطرك وناقة حشمة كلتشر وحي إنه هاي رقنكي وناكسنا إلا إلالي وبربري صدمكي سنة دولة الآنتها دولة دي السيستم كي كريه ما بربرين بني آدم كينا والله بربري بني آدم كي والله بربري بني آدم كي وحو النقضي يعني وحا إنا قصوا هاري إن يرى إلهي أن حريستي مويه بني آدم وحو البقو بربرين يدنتي سيا مصلحة ديس آن دل أن حينين آن أمد أن حينين آن دين أن حينين هدو مدحية يهدو من شيء يهدو ميل والبوت شوغا أنا قم محا إدن أكليتا بني آدم كي وابربري بني آدم كي إنتي الوضع سوبها هي أخلاق دي إني صون نغتان وبهن تنازل كي إيثار كي ولا النمدي إسجعيل كي وحساسين تي قرن نمدي وذا تشركي إني صون نغتان هدي أخلاق دي وناكسني دي رقم كي وناكسنا الله وايو أيضا السيدو كالي أمدو مهر مرتو سيدا استرادد خلاصة وحوي ولا ليها هرمركو قعنت أنه كتيرا بإذن الله تبارك وتعالى هدينو إنه طريقة دي قبصننا إن شاء الله وأحوال بوحل اسمه وهرمرينا هدينو طريقة دي سيقننا نتيجة وحويان وورير إيو وحلقان إيو السنة دير ودباتدو سيداك ناتوها إنك عمرك قعنت أنه كتيراني
asbaabta horumarka iyo ummaduhu siday u hinqadaan iyo sunanka ilaahay u dejiyay aynu qabsanno saynu mushkilada uga baxno insha Allah ta'ala jazakumullahu khair wa baraka fiikum wa assalamu alaykum